maalintaas bixin oo uu joogo oo dalka aanu ka tegin waxay ahayd xal uu gaari lahaa sida Itoobiya u xaliyay oo Ingiriiska shir intii la isugu geeyay loo xaliyay oo mucaaradka looga saaray Soomaaliya laguma sameyn waa la burburiyay inay saan u burburto waa rabay wadamada reer galbeedku Mareykanku hogaaminayo aan dhihi karaa waxaana aad uga shaqeeyay ambassador Bishop nin la yiraahdo qoraal ka sameeyay oo aan ka qoray qoraal fara badan oo aan kaga sheekeeyay ambassadorkaas wixii uu ka shaqeeyay oo ahayd burburinta Soomaaliya saasay Soomaaliya ku burburtay dadkii markii soo galeen hadaanan maxay ahayto maaragtay dawlado aanay gacan siinin oo aanay maxaan ku iraahdaa iyagii aanay joogin oo ay wada hadalsiineen sida Itoobiyaanka loo wada hadalsiin yani Soomaaliya ma helin fursadaas ma la siin oo loogu talagalay dhihi kara wadamada reer galbeedku safaaradu ay ka wada qaateen cilmi noqotay marka waxa isku soo haray dadkii Soomaalida ah oo jabhad oo maxaan ku wada hubaysan oo qarkood intooda badan reer baadiyaliin hubna haysto ma garat waxa bilowday in la isgumaado marka taasay marka yani burburka saas ku yimid markii lacagta laga goostay Maxamed Siyaad Barre oo lacagtii World Bank IMF ta iyo maxaan ku iraahdaa hay'adaha kale oo bixin jiray oo Paris Club oo kale wixii Europeanka iyo Mareykanka ay bixin jireen ay wada gooyeen wayna ku talagaleen in Soomaaliya